gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cidi Jineer Faysal Cali Waraabe oo muddooyinkii u dambeeyay howlo shaqo ugu maana qaar ka mid ah wadamada qaaradda Yurub oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay kigida diyaaradaha magaalada Hargeysa isla markaana ay ka qayb qaateen hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi waxa uu markii ugu horeysay uu sheegay in muddadii labada sanadood ee madaxweyne Biixi talada wadanka ay Soomaaliland wax ka dhacmooyay wax ku biiraan u jirin isagoo gudoomiyaha hoosta ka xariiqeen xubnihii gudida doorashooyinka ee cusub ee muranku ka taagan yahay golaha wakiiladu ansixiyeen ay maalintaas ahayd maalin madow waxaana gudoomiyaha hoosta ka xariiqay in wax wada shaqeyn la yeelan doonin ilaa inta laga bedelay buu yiri xubinta ilaa hadda muranku ka taagan yahay arintan hadda dhacday ee axadii dhacday horta waa maalintaas waa maalin madow dalku laba sanadoodba intuu markaa madaxweynaha Muuse Biixi gacanta ku hayay baa wax ka dhaca moojo wax u kordhaa ma jirin anagu dadku waxay lahaayeen mucaarad adag baa loo baahan yahay laakiin waxaan arkaynaa mucaaradda adag inaanay magaranaysaay ay ka fiican tahay inaanu wada shaqeyn ku dayno tanaasul samayno tanaasul badan baa la sameeyay waxaa ka mid ah tii caara ka mid ah tii commissionka ka mid ah ergadii weyneeda u timi rag waaweyn ahaa dadka beesha dhan ka socotay waa arkiiseen TC baa la yeelay waxaan ku niri arrintu waxay taagan tahay labadii dumarka ee isku qabsaday magaranaysaa halka qof ilmaha yar tii noo kala jar Muuse halkaas uu taagay maanta waxa kala jarmana Soomaaliland adoo taadanu yeelinaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka arrintaa geystay arrintan commissionka wad ogtayn intay soo socotay anagu xabadii commissionka head waxa ka maqlayay dadka oo leh cid kamay saarin anagu horta markii hore commissionka markii la qaybiyay waxa la yiri asxaabta laba soo magacaabeen laba qof oo xusbi ahayn oo lagu dooranayaan akhlaaqdooda iyo cilmigooda iyo kartidooda ma hadda xusbi ah ma soo doontaan ka daba taagnay marka tan leenahay qofku waa xusbi ka saar mar haddaan magacaawno oo gudbino anagu awood kuma leeyin madaxweynaha gudbinaya baarlamaanku maraya marka waa commissioner laakiin anagu ma xukuno isagay jirtaa inuu isriisaan gareeyo laakiin anaga waxaan oo furan deesay marka xusbiga ma qof soo taagay madaan aragna commissionkaasi commission xal ka soo bixin inuu yahay inaanu la shaqeyn halkaas uu ku caaridiya loo baahnaa ka soo baxayo ka joogo macnaha awood uma leeyin arrintan hadda jirta waxa weeye arrin laba xusbi maaha waa afa qaran baa dhacday waxaan doonayaa inaanu wadanka intan lagu soo eegi maayo hadda si lagu soo eego waxa weeye waa burburkeena waxaan jecelahay marka inaan insha Allah taala aan bilowno magaranaysaa wada tashi wax garadka reer Soomaaliland oo dhan sabti iyo axad insha Allah taala waxaan jecelahay aan noo odayaal soo wada hadalay oo dareenkan waa jiraa inuu dalku maanta ka laadlaado meel khatar ah wixii laga yeelahaa arrintan inagoo u dhan reer Soomaaliland u dhan tahay taladeedii inaan doonana insha Allah taala madaxweynaha qudadiisa ma itiri baa jirta waxaan leeyahay markuu noqo laakiin meesha waxa weeye waxaan macquul ahayn sharci la jabiyaan ogolaano anagu ma ogolaano xubinta magaranaysaa in raac inuu shaqeeyo ma aaminino la sharci buu jabiyay wuxuu la mid yahay lagu eriyay Fawzi inankii oo keenay wuxuu la mid yahay in Fadal lagu eriyay Maxamed Fadal ilhaan lagu eriyay weeye lagu qabali waayay marka inuu yiraahdo madaxweynuhu waxaan doonayaa sharci ah ma jirto sharci waa ka qoran ayaa jecel marka ma gelino warintooda dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka waxa uu sheegay in marnaba xisbiyada mucaaradku aan madaxweynaha ka yeeli doonin in sharciyada wadanka loo doortay inuu ilaaliyo isagu ku tunto isla markaana uu baalmaro sharciyada kala duwan ee dalka u taala waxa inagu dana waxa weeye dadka xilka loo saaray dalka ee mas'uulka ka ahaa
ayaa maanta dalka khatar gelinaya amba ha ahaato baarlamaan amba guurta ha ahaato amba madaxweyne ha ahaato madaxweyne sharciga ilaalinayay inuu dadka sharciga ku ilaaliyo iyo isagu sharcigii maanta ku tumanaya oo waxaan ugub ah oo welina soo marin baa weeye madaxweyne annaga nagu ilaalinayay sharciga qofkan soo magacaabno eegaya nagu celinayay in isagii u bareero dawaan u bareero hore wax bareero adiga aragto gole deegaan oo la dooran oo waqti ka dhacay oo waxba loo macamalin ayaa maanta hadana shaqaynaya marka wax kasta wuxuu ortay in uu suurta geliso laakiin tan waa ku go'ay bay la tahay arintani waa ku dhimanayay bay la tahay Cabdiraxmaan Abdullaahi fantastic Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida